بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مصطفى حاج اسماعيل هارون baa la yidhaahdaa reer wadaadaaba ka dhashay aabahay xaaji baa uu ku magac dheeraana sheekh uu ahaa awogay aw haaruun baa la odhan jiray awogay ka dambeeya aw yuusuf baa la odhan jiray reer culummo oo diin ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay wakhtigii isticmaalkaanan dhashay intii aan dowladda soomaaliyeed dhalaanin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabbahay allah u naxariisto 45 sannadood buu cadan deganaa 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo raggaa joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedoo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaanu walaalaanay nin qura nagaga dhashay cadan intayadii kaleba baadiyaana loo diray baadiyaanu ku soo dhalan baadiyaha gobolka togdheer ee burco ayaan ku dhashay isagaan wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institutekii jarmalka ee burco ku yaalay intaasaan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada laydhku ahaa jaamacaddii soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal laydha baan kaga baxay korontada tumaalku waa farsamo yaqaan laydh baan kaga baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaalla magaalada burcaan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo meelaha joogay dowladdii soomaaliyeed baa ay xidhay dowladdaas soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin inta meelooda wax ku xidhi jirtayba waan soo maray station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwado waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabarjabin waa laygu xidhay jeel waa laygu xidhay weligeyna maxkamad layma tagin mararka qaarkoodna sannadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray calaa kulli xaal waxbarashada diineedna waxunbay ahayd uun culammada soomaaliyeed ee waddanka deggan wixii aanu ka bogsanay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu jooga uun waddanka soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay wakhtigaas baan waddanka ka baxay yurub iyo meelahaasaan niman xanuunsanayo aan walaalana geeyey anigoo yurub joogaa dowladdii soomaaliyeedna dhacday ilaa 99kii baan deganaa yurub march 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada hargeysa ilaa haddana hargeysaan deganay laakiin socodkayga yurub waa tiro badan yihi 12 sannadood dama burciya hargeysa unbaa ka dhexeeya laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo yurub iyo meelahaan ku noqdo qaab nololeedkii soomaaliya waagii horena ee lixdanaadkiina dimuqrasi bay ahayd dimuqrasi qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaa waxaan xasuustaa iyadoo 1969 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay waddada maraanbaa waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh saas cirka yaale cirkiiyo dhulkaa la sheegan jiray heballada jiray dowladdii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialismkuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan sistamkaa ku qanacsanayne hortaagan baannu ahayn ma jirin cilmigu sidanuu hadda u faafsan yahay oo dowladdii soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan oggolayn kitaab aan dowladdu oggolaanin waddanka ma soo geli jirin waddankuna sidan uu iminka isaga furaya isagama furay diyaaradaha dibadda ka yimaada only xamaroo qura ka soo degi jirtay lama oggolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto isaa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd haddaan qiso idiin sheego 72kii anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo
ayaad guri tegaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumaroo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkan haystee markaa waxaa kitaabkan jalaalaynka la yidhaahdo jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn waxay ahaan jireen dhowr xaashiyood oo isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeyahay habeen baa labada xaashiyood aan dhegaysan kala baxaysa iyo furay labadii baa la soo baxay habeenkan uu meel la siiyey dhukusaya ayaa qabayliyey oo labadiina dabayshu ahaa yani kutub ma taalo baabani aad bay cidhiidhi u ahayd culimadu waa deganayd laakiin lama ogolayn inay xiligaan oo akhriyaan bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhalinyara tahay qaabko oo waayo dowladda ku xirisa inuu kaa fogaado nin inuu tafsiir caama ama akhriyi jiray weliba soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha ramadaan baa inta badan la akhri jiray waqtiyada kale kutubta fiqiga ama waa muxasan akhri jiray على كل حال وحده أنا أتذكر المامير رويا جانس كاي وحسن تنبه لمن جانس كان أي كتبته باقينا جموس ده كتبته مال استلمي أي كتاب أبو بانتال هلسو إلكترونيك عليها شامل سو هلسو أو يتمكنوا من جلد الجيران يعني جانس كسر تاني وقت إنسان زمان كره وحده كره وحباري كره ما لكن waxay yaalay dad committed oo dadaalaya mala taacadina ku jirto weyn ilaahay ku dhawaadaan ay ku jirto magaalo qadiyada jecel ku celiyo waxa weeyaan war nimcada haysataan ku saabsan diinku sida ay maanta u fudud tahay qofku barto ma jiro waxaa cidhiidhiya sidaad u xasilaysaa ay inta badan ku xidhnaanayso sidaad u akhriyo xataa iyadoo xaqiskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aad akhriyo uu cidhiidhiga ku gelo intan dambe dee meelaha soomaalidu joogto baan ka sheegi jirnay anugu macallin baan ahaan jiray saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli mana gaarin معلم مدرس ما درب وصوتي يعني ذلك وانا ولي وقت انا العلماء الصوماليين يستخدم قرب التكنولوجيا ان انه يمكن تغيير اخريه ضد اخريه انا سوستار عشان هذا مو بدنا هورين انتيادي تقول لي سنجري مقاحك واخريج والصوماليين هم مقاحدين Somali Welfare Now, Somali Welfare Organization. I am going to one of the Todawat man who might be I will say that then ha. Neman Arabaha can take your details of your name by Oberna. فرقسام بلا بين حضارة حول الإيمان أركان الإيمان هي حول الحضارة الإسلامية نكورها لأن اللي يرانا هذا الوضع لو صعي لنا ما إلا تطبق أفريد بكي عشان من هذه marka waxay noqotay marka in laba saac iyo dheeraad dadka marka cajaladahaas ma soo gaadho gaadada siiyay malaa'ikada sheekh weyn marna ma noqonin laakiin fursad aanay jirin arway wax la duubo ma waxaan xasuustaa waxba duubina ku nin dhalinyaro baa intuu kamarada si soo qaatay uu yiri sheekh ama fadhiyo wax akhriyo haga damo ba fadhiistay marka waxaan kala doortay inaan wax akhriyay يلا سكتوا ما قاسان سكاخري درس في دمبالي مالتي دمبال عجلة السودان مكايو بدأ يوم بدنا إن في أجس باي حاجة في أجس كنا وشد بدي جرتي كلية إذا عجلة دي قادم في وشد جي أنتنا لو قولا عجلة ضد مكان يرى ما يشكوي من أيام أبوي يا عبد الله حسين كهيا هذا اليوم هنا دور هذا يحمل بالوديو يقول يبين أيام وأروح سيدي وحنا يبين أنا شيخ مساعد كام كذا كذا بيحكي كذا كام مسوي مساعد كام كذا على كذا فكان واحد ضد كتب بينا أنا كنت لقى لنا ينام دوبه